أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. ثم الصلاة والسلام
على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة ولا ليال dhammaantiin meel kastoo dunida aad kaga sugan tihiin waan ini salaamay, waxaan inagu salaamay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu. waxaan jecelahay walaalayaal inaan 3 arrimood baan haggan usoo fadhiistay caawa insha allah. annakana waa xilli duhur dabadii oo galab ah, waa 4tii bay waxla salaadii casar baa nooma soo gelin. dadka afrikada bari ku noolnaa salaadkii taraawiixdii bay soo tukadeen, guryahay kusoo laameen. meelo kaleetana suxuurtii bay cuneen. ilaahay baa dunida ina joojiyey tabaaraka wa tacaala. waa wuxuu qur-aanku u yidhi marna rabu lmashriqi walmaqrib, marna rabu lmashriqayn iyo rabu lmaqribayn, marna uu yihi rabu lmashaariqi walmaqaarib. cajiib weeyaan. adceedu maaragtay laba meeshay ka soo baxdo iyo meeshay ka dhacdo ku dhaartay. ilaahay yidhi kaabaan ahay. haddana wuxuu yihi labada meelood ay ka soo baxdo iyo labada meelood ay ka dhacdo. haddana wuxuu yihi meelaha ay ka soo baxdo ee badan iyo meelaha ay ka dhacda ee aadka u badan. alxamdu lilah. 3 arrimood ay soo fadhiisiiyey, waxa ugu horeeya waxa weeye inaan walaalaha muslimiinta ah aan caawa u tahniyadeeyo soo galitaanka bisha ramadaan ee barakaysan. jazaakum allahu khayran. meel kastood joogtaan caawa oo salaaso ah, waxay noo bilaamatay waa 1da bisha ramadaan ee barakaysan. waan ka hadli doonaa waxyaalada bisha ramadaan lagu ogaaday inay soo gashay. annaku waxaan ahay dadka ku qanacsan in lagu shaqeeyo xisaabta astronomiga ah, maaha cilmiga nujuumta, maaha cilmiga xidiginta, maaha say soomaalida u taqaano, laakiin cilmiga astronomiga, cilmu lfalak, dadka ku qanacsan baan ku jiraa. waxaan ogeyn inay caawa tahay sanadkii hore markii ramadaanka laga soo baxay waa la sheegay inay noqonayso salaasada aabo. marka sanadka dambena waa la ogyahay, kasii dambeeya waa la ogyahay, ilaa iyo 50 sane soo socota bisha ramadaan habeenka uu ku dhacayo waa la ogyahay. waxaa markaas arrintaa keenayana waxa weyaan waa tatawurka, evolutionka weyn ee ka dhacay. habeen baan ka hadli doonaa cilmiga falaga. marka calaa ayati xaal, alxamdu lilah, habeenkii ay sii iclaamiyeen wadano badan oo cilmiga falaga qaatay oo aasiya ku yaala, iyay u yimaadeen kuwii indhahana ka doodoonayay sida wadanadeena iyo sacuudiga oo kaleeto. alxamdu lilah. marka taasi waa inta badan beritole, inkastay qaar 4 kulley soomi doonaan, waan hubaa in la iskhilaafi doono. laakiin caawa waa ramadaan. ramadaankii baa inoo bilaabay, bishii ugu qaalisanayd bilaha, sayidu shuhuur. waxaa ku jirta habeenkii ugu fadli badnaa habeenada, leylat lqadri. marka waxaan jecelahay inaan inii barakeeyo habeenkan oo inaga idhaahdo taqabal allahu minkum wa mina saalix alacmaal. ilaahay ha inaga aqbalo idiilkeen meel kastood joogtaan wanaagga aan qabanayno bisha ramadaan. arrintaasi waa arrinta koowaad in haggan aan usoo fadhiistay inaan tahaniyadeeyo qof kastii oo muslina oo adduunkan ku sugan. waxaan kaloon tahaniyadeynayaa dadka ku nool dalka asalkayga aan kasoo jeedo ee jamhuuriyadda jabuuti. waxaan ku leeyahay idiilkiinbaba kullu caamin wa antum bikhayr. sanad wal khayr ku sugnaada iyo cibaado
iyo alla ka cabsi. waxaan kale oon halkan uga soo tabinayaa tahniyadeyda ummadda Soomaaliyeed ee aan ka midka ahay ee Soomaalinimadu ay nabadayso meel kastay dunida ka joogaan guda iyo dibadbaba. waxaan ku leeyahay yakana kullu caamin wa antum bialfi khayr. waxaan kale oon salaamayaa shucuubta aan ku wada noolnahay geeska amba bariga Afrika wadaagno diinta. Jabuuti dee waa salaamay oo waa waddankaygii number one ahaa, laakiin shucuub kale waxaa jirta muslimiin ah oo Ethiopia degan, Oromo, Anfar, Urago, Harariyiin, Benishangol, sawaaxisha degan maaragtay dalka Kenya, Tanzania, bariga Afrika oo dhan dad aan maaragtay oodeynu isgaadho ayaa jirta oo islaam ah. iyakana waxaan ku leeyahay ilaahay soonka ha inaga aqbalo kullu caamin wa antum bikhayr. waxaan kale oon halkan ka tahniyadeynayaa basharka bini aadamka ee dhulka nagula nool ee wax cadaawtinimo aan naga dhexaynaya dhulna naga haysan. kuwa dhul naga haysta waa gooni hadalkoogu. diinna aan isku hayne basharka ah naga dhaxaysa bini aadanimadu. iyakana waxaan ku leeyahay sanad wanaagsan nala dhadhamiya macaanka bisha Ramadaan iyo islaamnimada. waxaan kale oon tahniyadeynayaa muslimiinta Canada oo ah dalkaygan aan fadhiyo. dhammaantiin muslimka Canada, haddaad Soomaali tihiin iyo haddaad Anfar tihiin iyo haddaad Oromo tihiin iyo haddaad Carab tihiin iyo haddaad cajam kale tihiin iyo waxaad doontiinba haddaad tihiin, waxaan igu leeyahay dhammaantiin muslimiinta. iyo kelmad baan u qabtay reer Canada oo af carabi ah iyo faranji ah oo soo sii deyn doono. waxaan ku leenahay yakana kullu caamin wa antum bikhayr. jazaakum allahu khayran. waxaan kaleeto oon jecelahay inaan dadka kaleeto ee nala deganna aan saa ku idhaahdo. intaas waxay iga tahay ikhwaani fillah. waa tahniyadii weeyaan. tahniyaduna islaamka waa ka mid. saxaabadu way istahniyadeyn jireen, waxayna isku tahniyadeyn jireen taqabbal allahu minkum wa minna saalix alacmaal. ilaahay naga aqbalo wixii khayra een qabanayno. alxamdu lilah. arrinta labaad aan jecelahay inaan ka hadlo waxa weeyaan wax yar oo ku saabsan soonka iyo bisha Ramadaan. waxaad ogtihiin dad fara badan soonku waxa weeyaan waa afxidh iyo cawrada oo la xidho oo galmoodka laga xidho. afkana waxaa laga xidhayaa acab iyo raashin. galmoodkiina waa la xidhayaa, waa la joojinayaa adoo u jeeda inaad soonto min marka waagu baryo oo fajri saadiqu dhasho ilaa cadceedu ay ka dhacayso. intay dooni saacaddu ha qaadato kol haddii habeen dhalaal la kala garanayo. waxaa loo baahan yahay niyad. marka la soomayo niyad loo baahan yahay. niyadduna maxalkeegu waa qalbiga. uma baahan inaad tidhaahdid nawaytu sawma qadin can adaa'i fardi shahr ramadaan hadihi sana iimaanan waxtisaaban lillahi taala. haddaad tidhahdidna wax dhibaataa male, laakiin waxaa niyadda inaad ku qabatid inaad beritoo la soomaysid. habeen walbana waa in la niyoodo, lianna maalin walba waa soon, waa cibaado khaas ah weeyaan. bisha Ramadaan oo la soomo waad ogtihiin waa farad, waana rukni arkaanta diinta ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanku inoogu sheegay suuratu lbaqara kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ayaaman macduudaat. marka taasi 183 184 aayadda. kadibna ilaahay wuxuu ka daba keenay aayadda kale oo 185 ah, shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan. marka bisha la soomayo waa Ramadaan, waana waajib kutiba ay furida. in arkaanta islaamka ee shanta uu nebigu noo sheegana
waxaa ku jira sal slam nebigu wuxuu yihi islaamku waxa uu ku dhisan yahay in ilaahay la qiro, nebi maxamedna uu nebi yahay la qiro, salaada la tukado oo la oogo, sekada la bixiyo, ramadaan la soomo, guriga ilaahayna loo xajiyo tabaaraka wa tacala qofkii karaya. marka muslimiintu meel kastay dunida ka joogaan, sunno iyo shiico dawaa'iftoodaoo dhan iyo khawaarijba waxay ku urureen inuu yahay soonku waajib, uu farad yahay. qof arrintaa diidayna ma jiro. hadduu qof diidana wuxuu diiday macluum min addiini bidaruura kaafir buu noqonayaa, diintana dibaddu ka oolaya. waxaad ogtihiin ramadaanka waxyaalada lagu sugo waxaa ka mid ah in bishii ramadaan la arko, oo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ku sooma aragti, kuna fura aragti, haddaad arki weydiinna dhammeeya bisha shacbaan 30 cisho. fa in gumiya haddii niga qarsoonaato, gabiya haddii uu maaragtay ay hoos gasho maaragtay wax aan suurto gelinayn in bishii la arko. ibnu cumar ramadaanka nebiga loo sheegay wuri sal slam wuxuu yihi ha soomina ilaa aad bisha aragtaan, hana furina ilaa aad bisha aragtaan, hadday niga qarsoonaatana qadara faqdiruu lah. markaas qumma wuxuu ku macneeyeen culummadu khafiya, hadduu qarsoomaado amba daruuri ay qariso iyo wixii la halmaala. arrintaana waa dee naxariis ummadda uu ilaahay u naxariistay, maxaa yeelay kuma kalifin ilaahay inay ummaddu xisaab waqtiga ay gasho, lianna cilmigani istiqonomiga dhacday falakigu horumarba gaadhin, cilmi khuraafaad ku dhisan buu ahaa sida tanjiimka oo kale. marka suurtagal ma noqon karayn inay dadku waxna ma akhrinayn waxna ma baran. marka wasiilada u suurtagali karaysa waqtigaas muwaayaaga quraatay haystaan oo ah wax la arki kara ayuu markaa nebigu ku amray. diinteena waxaad ogtihiin inuu ilaahay yidhi kuma kalifa ilaahay dadku waxayna karin tabaaraka wa tacaala. marka saddex dariiq baa loo maraa si loo hubiyo inay bishii dhalatay. waan ka hadli doonaa insha allah, maalin baa si khaas uga hadli doonaa. ta koobaadi waa bishii oo la arko, ta labaadina waa shacbaan oo 30keygii la buuxsado, ta saddexaadina waxa weeyaan in la qadaro inay bishii dhalatay, macnaha in la xisaabiyo. saddexdaa baa lagu dhaliyaa bisha ramadaan, lagu ogaadaa. laakiin dhowr xaqiiqaan jecel lahay inaan sheegno oo muhiima. xaqaa'iqda waxa weeyaan ta koobaadi, bishii ma dhalatay mise ma dhalan, ilaahay uu inoo ballaariyey tabaaraka wa tacaala. walidaalika wuxuu inoo ogolaaday in bishu ay dadku ku soomi karaan inuu qof lagu kalsoon yahay arko, amba laba qof inay arkaan. shardi kama dhigin dad fara badan inay arkaan, oo culummada qaar baasaa yidhi, laakiin culummada muctabariinta oo dhan saas may dhihin. marka saxaabadana way jiraan dad yidhi waa inaa la xisaabin karo, dadkii salafkii baan ujeedaa. arrinta labaad, haddii la qaldamo in bishii la arko amba la arki waayo, ilaahay dadka waa u dhaafayaa, hadii maalin lagu horreysiiyo maalin laga dambeysiiyo. hadduu qof yidhaahdo waan arkay isagoo iska dhaadhiciy inuu wax arkay, oo dadkuna ay ku soomaan aragtidiisii amba ay ku furaan aragtidiisii, rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na weeye. arrinta saddexaadi waxa weeye, dadka muslimiintu waa inay isku dayaan inay maalin wada soomaan say u dhan yihiin adduunkao dhan, maalin ay wada furan waa qurux weeyaan. hadday arrintaasi suurto geli kari weydo, waxaa laga maarmaana dadka waddan wada degan qudri inayna iskhilaafin soonka. matalan dadka degan oo kale Canada, waa inay culammada Canada isku waafaqaan inay maalin dadka soonsiiyaan, maalinna afuriyaan, oo dadku ayna la soomin Africa meesha ka yimaadeen iyo dhulkii ay ka yimaadeen. waa inaan meeshan la ixtiraamo weeyaan. taasina waa muhiim, laanno cala aqal midnimada dhulkaa bay sheegaysaa. reer galbeedku waxay inta badan yidhaahdaan si aan ciyaalkiina inoogu fasaxno iyo shaqada aan nii fasaxno ayaan tiiba soomaysiida, ma soonka Bakistaanka nagu fasaxnaa mise ta carabta nagu fasaxnaa. marka waa in la mideeyo, taasina waa arrin muhiim weeyaan. marka ikhwaani fillaah, waxyaalooyinka dood maanta la isweydiiyey waxaa ka mid a iyadana taglaalkan dadka la taglaalayo iminka
soonka muu waxbuu yeelayaa muu jebinayaa mise dhibaato muu keenayaa waxaa dhahdaa waa irbadda waxaa dhahdaa ibradda culimmadu way ka hadleen xukmu libra marka qofka lagu mudayo ibraddu soonka maxay yeeshaa maaha taglaalkoo quraati irbaddan laysku mudayo waxay u qeybiyeen laba culimmadu ibratun lilcilaaj wa ibratun liltaqdiya irbad layskugu mudo dawo ahaan iyo irbad layskugu mudo raashin ahaan marka haddii irbadda layskugu mudayo dawo ahaan iyadu wax dhibaato ah male waa itifaaq bayn alculamaa wax dhibaato ah oo soonka ay u leedahay ma jirto irbadda haddii lagugu mudayo inay cunto ku siiso culamadu waa isku khilaafeen qaar waxay dhahdeen way jebinaysaa lianno waxay irbaddu waxay tahay bedelu tacaam cuntada bedelkeegii bay tahay walidaalika ma dhowdo anigu aan xanuunsnaa oo kale oon dhaktar ku jiray raashin ma cunayn dhowr cisho laakiin waxaa laysiinaya irbad baa lagu siinaya cuntadii marka waan ka dhadhaminayay maaragtay caloosha dhexdeeda inay raashin galayso waxbay gelayay waxbay taabsanayay markaas daraaddeed waxaa muhiima markay raashinta anigu waxaan taageersanahay culimmada odhanaysa soonka way kaa jebinaysaa ta raashin ka noqonaysa laakiin ta kale kaama jebinayso okay marka taglaalku wuu kaba hooseeyaaba irbadii dawada ahayd oo waa taglaalka hortag weeyaan qofku haddii uunan ku dawaqayn hadduun biyo u bahnaanayn marka qaarkood biyaa loo bahdaa baa marka lagu mudo dawadan haddii biyo aan loo bahnaanayn mooyaane haddii kaleetose soonkaagii waxay yeelayso ma jirto waxaa jira mawduuc kaloo ah dadka safarka badan leh dadka safarka badan leh horta safarku waa ruksad qofku soonka uu dayn karaa uuna soomi karaa walidaalika culimmadeenu waxay dhahdaan ma waxaa fadli badan in la jebiyo marka la safrayo mise in la soomanaado keebaa fadli badan waxaa otiin qur-aanku wuxuu inoo sheegay faman shahida minkum ashahra falyasumhu waman kaana mariidan aw calaa safarina facidatu min ayaamin ukhar qofka bisha ramadaan ay usoo gasho isagoo nool caafimaad qaba oo degan ha soomo qofka xanuunsan amba safar ku jirna waxa uu xaq u leeyahay inuu ayaamo kala tirsado facalayhi an yucidda ciddatan ukhar ilaahay wuxuu nala doonayaa fudayd waxba naguma adkeynaya tabaaraka wa tacaala sunnaha nebiga sala allahu alay wasalam caasha waxay tiri ninka dhahda xamza ibnu camrin alaslamiy radi allahu canhu nebiga wuxuu ka yiri sal ly slam asuumu fi safar markaan safarka ku jira maan soomayaa wa kaana kasiira siyaam nin wuxuu ahaa soom badan faqaala nebigu wuxuu ku yidhi in shita fasum wa in shita fa aftir haddaad rabtidna soon haddaad rabtidna afur riwaayad kale oo imaam muslim raximahullah uu soo saaray wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah anu waxaan ahay nin quwad u leh inaan soomo safarka wax dhibaato ah baan kala kulmayaa wuxuu ka yidhi rasuulku hiya sal ly slam hiya taasi waxa weeye waa ruqsad ilaahay ku siiyey ninkii qaatana waa xasan kii ka tagana wax dembiya oo ku jiraay ma jiro nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waxay dhahdeen sida maaragtay abidarda oo kale nebigaan la baxnay sal lla ly salam markaasi nebigu fii bacdi asfaari baan la baxnay maalin aada u kulul dadkii oo dhan maaragtay madaxay gacanta saarayeen kuleyl daraaddeed wamaa fiina saa'im qof soomanna ma jirin ilaa mooyaane nebiga sala allahu alay wasalam iyo ibnu rawaaxa radia allahu canhum marka waxay wariyeen markaas anas iyo ninkaasi inaan nebiga la safri jirnay in badan sal ly salam nebiguna markaa falam yacib isaa'imu ka sooman ma ceebeyn ka muftirka ah ee faadiray afuray ka afurayna ma ceebeyn ka sooman ummadduna waxay mujmac ku tahay inuu soonku yahay wax maaragtay safarka loo ogol yahay marka taasina dad fara badanoo waxaa jira basaska baaburada dhaadheer wada waxaa la yidhaahdaa safarku hadduu aad diyaarad raacaysid oo meel waddan yaroo dhow tegaysid waxaad ka raacday toronto waxaad tagaysaa maaragtay ottawa saaceer weeyaan
ambase waxaad ka dhooftay Addis Ababa waxaad tagaysaa Dira Dhabe amba Hargeysaad ka dhooftay oo Jabuuti baad tagaysaa amba Xamar baad ka dhooftay oo Nairobi baad ku socotaa يعني معناها سفر اسكا مريحة وهداد دونتا waa soomi haddaad doontidna waa iska afuraysaa lagu ogol yahay laakiin culammadu waxay dhahdaan in la afuro iyo in la soomo way kala fiican tahay marka qaarkood dadka safarka ku jiray qofku hadduu ka mashquulayo inuu qalla helo sida ragga isjiidka badi wada amba safarka badan leh inay iska soomaan baa fiican labo haddii wasiilada aad ku safraysid ay mid muriixatood iska raaxa waxba aad dareemin iyadna waa iska fiican tahay haddii ay masaafada safarku ay ka gaaban tahay inta laisku khilaafsan yahay 80 kilo iyadana waa idaa soonta akhri iska fiican laakiin safarku wuxuu fadli badan yahay haddii soonku mashaqo keenayo naftu ku adag tahay waxaa fiican inaad faadirtid oo soomin haddii aad jamaaco la socotid kuu baahan inaad u shaqaysid sida aabbaha hooyada oo kaa weyn oo da-ah amba waalid macooy iyo ayey amba sheekh weyn oo kula socdo daalan dad baad u adeegaysaa safarna waa tihiin qofkaas waxaa fiican maadaama uu adeegaya adeega ka fadli badan safarna waa lagu jiraa uu qalliin doonaa soonka waxaa kale oo jirta haddii dadka inaad barta aad rabtid matalan nin sheekhaa tahay oo daaciya oo dad ku dayanayaan safar baad la gashay waa iska faadili adigoo ujeedadu ay tahay dadku inay bartaan in la faadili karo marka safarka lagu jiro tacliim baad ujeedaa waxaa kaloo jirta haddii dadku ay jamaaco yihiin 5-10 ay yihiin oo ay amiir samaystaan uu amiirku yidhaahdo maanta waa la faadilayaa waad faadilaysaa lian amarkiisa waad qaadanaysaa waxaa kaloo ka mid ah haddii dadkii oo faadila aad keligaa sooma tahay ceeb ahaan bay yara tahay dadkii oo wada faadiray marka cod soo dhitaanba ka duwanaanshahaasi maaha wax fiican maaha waxaa kaloo ka mid ah haddii jihaad lagu jiro waddan islaama la difaaciyo oo cadow laga difaaciyo iyada waa saas oo kale marka taasina waa intaas baan kaga baxaynaa gabagabada yani waxaan jecelahay inaan sheego dhowr arrimood oo dadkiinu ay u baahan yihiin inay maaragtay ka fiirsadaan gaar ahaan dhalinyarada dhukashada xaaska la dhukanayo soonka maxay yeelaysaa iyaduna dadka dhalinyarada ah nabigu sal slam odayba u yimid wuxuu ka yidhi yaa rasuul allah haddaan xaaskayga dhukado xaaskayga soonkii miyuu iga jabayaa mayuu ka yidhi u ogolaaday mid kalena u weydiiye wuxuu ka yidhi ha iska ilaali soonku xaaraan bay ka tahay marka waxaa fiican in la eego qofka xaaladiisa us garanaya qofku marka dhalinyaradu nebigu uu dhukan jiray bay inta badan ka sheekayaan taasina waan ka waanina insha allahu tacaala calayhi salaatu wasalaam intaasi haddaan kaga baxno waxaa jira isticmaalka cadaygu waa labo cadaygeeni caadiga ahaa geedka ahaa iyo waxaa jira cadaygan macjuunka la dhahdo lagu cadaydo dawada haddii cadaygii caadigeenna ahaa aan ku cadayan jirnay madhabka shaaficiyadda iyo madaahib kaleba waxay qabaan duhurka marka la gaadho zawaalka wixii ka dambeeya waa makruuh ma fiicno wixii ka horeeyana cadaygu had iyo jeer waa mustaxab sal alla alay slam nabigu sunnuu ka dhigay waana fiican yahay in la cadaydo had iyo jeer okay arrinkaa shaaficiyaddu madhab maxay u haystaan daliil caan bay haystaan oo ah qofka sooman afkiisa urta ka soo baxaysa waxay ka udgoon tahay miskiga ilaahay agtiisa macnaha waxay yidhaahdeen ha iska baabiinde urta cilmiyanna waxaa la ogaaday urtu afka kama imanayso urtu caloosha ka soo baxaysa calooshan faaruqday iyo urtu ka imanaysa urtani soo baxaysa marka nebigu nacam ha ka nixin nin sooman hadduu kugu neefsado wax kaga soo baxaan ha nixin waa uu sooman yahay udgoonka baa ilaahaysa laga xusayaa يعني قفكم بو نبي قلبي صار له رسالة عليه الصلاة والسلام لكن شافوا الأساس أفهم رحمهم الله ولا راجع هنا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مركز يسوق عضية للكجري مركز وين لسك عضية هذه الجار عصر كان عضية يعني مغرب هذا دوت لسك عضية يعني واحد باتاكم مجرتوا هذه لقوا عضية يتن بابا لا بضع لكن مركز لقوا عضية هي الدودة
oo in la iska ilaaliyo arrin muhiim ah. Arrintaasi muhiimka ah waxa weeye in la iska ilaaliyo waxa weeyaan inaad liqdid markaad ku cadeeyatid si degdega afkaaga hore uga soo saar ka luluqo ka nadiifi inay dawadii aad liqdid soomku kaa jabaya. marka taasina waa muhiim in la garto. marka taxawud baa loo baahan yahay. taxawud waxa dhahdaa iska ilaalinta marka waxay nagu qasbi karaysaa dadka qaarkood inay iska daayaan wixii ka dambeeya salaada duhurbaba amba maalintoo dhan inay iska daayaan habeen marka ay cadeydaan salaada markay maaragtay suxuurtaan inay dawada ku cadeydaan ay ku hornadifiyaan marka dambeetana cadaygeena caadiga ambaba bahalkan cadayga oo aan dawadii la socon in lagu cadaydo iyadna si loo iskaga ilaaliyo inay calooshaada wax ku dhacaan leanna wuxuu waa cibaado waana soon weeyaan. marka arrimaha kale oo diinteenu ay nala jeclaatay waxaa ka mid ah afurka in la dedejiyo. afurka dad badani waxay afuraan dib ba iska dhigi karaan laakiin waa in la dedejiyo. timir iyo biyo yaana ugu fadli badan hortaba in lagu afuro ka amba caano. marka timirtu waa muhiim 3 xabad 3 5 7 sunnaha yani inay witri ahaato ayaa la jecel yahay. nabigu wuxuu yidhi ummadeedu khayr kama zuulayso inta ay dedejinayaan afurka. xagga suxuurta in dib loo dhigaa fiican ay maa qabla salaat alfajri inta eedaanka fajriga una dhicin iyaa fiican. nabigu wuxuu sal slam wuxuu ahaa nimid dib u dhiga maaragtay suxuurta wuxuuna oran jiray suxuurta waxaa ku jirta baraka ku jirta yani jirkana baraka ku jirta ilaahayna baraka kale oo isagu og yahay baa jirta. arrinta kale muhiimka ah ramadaanka waxa weeye in la iska ilaaliyo dayaldalka badan. soonku waa tarbiya waan ka hadli doonaa waxaasoo dhan marka ramadaanka dhexdiisa laakiin insha allah waa muhiim. marka in la iska ilaaliyo soonku waa junna soonku waa gaashaan taasina waa muhiim. arrinta kale ila fiican inaan isku sheegnaha waxa weeyaan maadaama corona lagu jiro waa arrinta ugu dambeysay saddexaad inaan ka hadlahay sidee baan u cibaadaysanaa bisha ramadaan corona dhexdeeda. imtixaan baa ilaahay nagu soo dejiyey. imtixaankan corona la dhahdaa kulamadii kale waa la ogolaaday waddanada islaamka. ramadaankana in dadka laga yarayaa la rabaa oo dhacdo taraawiixda tukanina maxayga tukanina laakiin wixii kaloo dhan taga macquul maaha. dadka sidan Canada oo kale ka wada jooji wax walbaba adduunku Canada wax walba mamnuuc bayaan meel isku iman karaa ma jirto. dadka tirada loo sameeyey waa khalaas. masaajidda iyo kaniisadina waa laga reebo waxaa la yidhi waa la tagi karaa laakiin intaasoo tiraa 10 qof 15 qof baa loo ogolaaday marka si ayna masaajidii u faaruqin laakiin maalihii kale waa la joojiyey iyo kanaaisti si ay u faaruqin. annagase waxaa lagu bilaabaya wax kastoo diinta laga bilaabaya. marka waxaa la rabaa inaan arrinta ka fiirsano laakiin waxaan leeyahay salaada taraawiixda asalkeega nabigu wuxuu ku tukan jiray guriga markuu bilaababa 2 cisho dad ku jiray masjidkii uu ka baqay in ummadda lagu faradeeyo gurigu ku tukaday ilaa Umar uu soo celinay masjidku soo celiyay yaana waxay giba istaageen sunnihii buu soo ceshay sidii diintu ahayd. marka maantana waxaa dhacday mashaakil weyn in guryaha lagu tukado dadka khaasatan waddanada la mamnuucay masjid la tago ha joojina cibaadadii taraawiixda guryaha lagu tukado. sanadkii hore gurigayga aad baan ciyaalkayga waxay dhahdeen sanadkan baan ugu fiicnayn inaan tukano salaadii taraawiixda. awaltoon markaan masjidka gaarkan way naga dhici jirtay anagoo shaqayna baawarkii wadana maxay way naga dhici jirtay laakiin maanta kamayna dhicin. salaada maqrib markaan tukanay afurna kadib waan galaynay taraawiix baan kaas ka dhigaynay kadibna qofka shaqayso galay. marka taasi waa muhiim jiddan taraawiixda in aqalada lagu oogo. dadka dhulka ku nool Afrika xamar oo ognahay waxa ka dhaca problem dadka badan dhintay waxaan anu ku talin lahaa in qofka weyn ee 50 sano waa tala yani diin waa talo 50 sano iyo 55 qofku hadduu gaaro inaa guryaha la iska fadhiyo lagu tukado salaada fiican waa kow. arrinta labaad maadaama masjid xidhan la isku imanayo inaa la qaato maskiga sansaarka in lasoo qaato in gacmaha aada loo soo dhaqo lana sitana wixii gacmaha lagu dhaqayo xitaa qofkii heli kara in salaanta la iska daayo masjidka inta la dhex joogo in masalada la sito lagu tukanayo in maaragtay waxaas oo dhan la ilaaliyo lianno liajli sunna ha u dirin jirka iyo nafta ha u dirin adoo ilaalinaya sunne
taasina waa muhiim jiddan dadka in lagu tawjiihiyo waa muhiim weeyaan. marka covidkan 19 wuxuu ina barayaa inaan arrintaas ahmiyad gaara aan siino ikhwaani fillah. bisha ramadaan maadaama aan ku jirno aan ka faa'iidaysano inaan dikriga iyo daacadda aan badino insha allahu tacaala, inaan ducada badino iyo ilaah xuska, inaan maaragtay kitaabka qur-aanka aan akhrino. kitaabka qur-aanka waan ka hadli doonaa sheegay ani waxay la tahay inuu qofka ugu yari ku dadaalo inuu qur-aanka hal mar dhameeyo, ka kale 2 iyo 3 jeer dhameyn karana uu isku dayo iyo in ka badanba, laakiin ugu yaraan hal jeer qur-aanka in la dhameeyo waa muhiim jiddan. arrinta labaad ee qur-aanka ku xidhan waxa weeyaan in la isku dayo in qur-aanka la fahmo, wax laga fahmo. taasina waxay ka tahay arrin maaragtay tala ah. ugu dambeyntii waxa weeyaan bisha ramadaan inoo bilaamato wax badan isku sheegi doonaaye inaan la sameeyo waxa la dhahdaa tarbiya usariya, familigu inay xiriir iyo cilaaqaad dhexdooda ay samaystaan oo ay sheekooyin iyo walaalnimo iyo isla koriyaan nolosha, iyadana waa muhiim jiddan. marka jazaakum allahu khayr. hagan tahniyadeeda anoo kasii baxaya waxaan aad u salaamayaa qaraabadayda hooyadii ugu horeyso ومك سعيد جزاك الله خير هويو كل عام وأنتم بخير. hooyadeyda labaad faadumo raage khadiija jazaakum allahu khayran. waxaan ka salaamayaa adeerkay iyo adeeradeeda France jooga dhammaantood jazaakum allahu khayran, hadday joogaan maaragtay France koonfurteeda iyo waqooyigeegaba, oo kuwa jooga maaragtay Canada iyakana waan salaamayaa, oo khadiija cumar bashiir ugu horeyso iyo cubadkeega mukhtaar hooyadood waan wada salaamayaa. waan ka salaamayaa halkan walaashay ifraax iyo odaygeega, nadiira iyo odaygeega, walaalaha kalen jecelahay asxaabtayda culummada sheekh muuse iyo asxaabtiisa waan salaamayaa. waa dhammaan isagaa ka wada mas-uula culummada. waan salaamayaa dhammaan maaragtay asxaabteeda kale ardaydeeda oo shirwac iyo teknishiyaanku ugu horeeyo iyo kuwa kaleete iyakuna isagu mas-uul ka yahay. waan salaamayaa walaalahayga kale ee dunida jooga asxaabtaya dhammaantood waan salaamayaa iyakana. qof kastii oo walaal ila ah oo walaalnimadiisu runka tahay oo qalbiga iga walaala waan salaamayaa. qof kastii oo walaalnimadiisu caadi tahayna si caadi aan u salaamayaa. qof kastii oo maaragtay basharana waan salaamayaa. dhammaantiin waxaan iga leeyahay sanad wanaagsan, ramadaan wanaagsan. musaamax baa iga yihiin dadka aanan xaq aan leeyahay iga dhicin, sida duqaadda iyo daalimiinta ummadda haysata, kuwaasi musaamax igama aha, mana saamaxayo maadaama ay xuquuqdii bini aadanka iyo xaqaygiiba ay haystaan iyo xaqii ummaddaba. laakiin qof kastii oo muslina oo aan dhibaato iga sheeganay hadduu jiro, dadka ma dhibaateeyabe, saamax baa iga tihiin. inninkana waxaan iga filayaa inay saamaxdaan. qof hadduu u fahmay wax aan qoray inaan isaga ula jeeday, saamax baa iga tahay. waxaan ka hadlay hadduu qof u fahmay, isagaa u fahmay, waa qofna uma jeedo, anuu fikir uma sheegaayo. hadduu u fahmay, musaamix baad iga tahay. dhammaantiin musaamix baa iga tihiin. عفو عافية بشبش برواقه. سند ونعكسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.